ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي كنا نلتقي والحب والإخلاص. dhammaan ardaydu way salaaman yihiin. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa maadadii tarbiyada islaamka fasalkii saddexaad ee dugsiga sare. waxaynu insha allahu tacaala maanta qaadanaynaa alwaxda cutubka ayaynu qaadanaynaa ugu dambeeya oo ah asiira, siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaynu qaadan doonnaa casharkiisa koowaad oo aynu ku baran doono taariikh nololeedkii u lahaa saxaabiga jaliilka cuthmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canh. huwa cuthmaan ibnu cafaan ibnu abi lcaas. saxaabigani waa cuthmaan oo ina cafaan ah, aabbihii cafaan baa la odhan jiray. qabiilatuhu, qabiilada uu ka dhashay, bani umaya, waa reer bani umaya, waana jilib ka mida 12 raas ee ay ka koobnayd qurayshi. mumayizaatuhu, tilmaamaha uu kaga duwanaa ama uu kaga soocnaa saxaabada kale ridwaanullaahi calayhim ee aynu ku xasuusan karno waxaa ka mida ثالث الخلفاء، وصحابة خلفاء أهيد مدكوغي صدحات، خليفكي صدحات المسلمين توي. أبو بكر بوها خليفكي كوباد، عمر بوها خليفكي لباد، خليفك الصدحات وعثمان بن عفان رضي الله عنه. وأحد المبشرين بالجنة، ومد كمدا تبنك صحابي قيمها بضن جند اللوغو بشاريي. وكاتب الوحي، ومد كمدا صحابة قري جرتي وحيغا كسو دغن محمد عليه الصلاة والسلام. لقبه نانيست اللوغو ييري جيرين ذي النورين، waxa loogu yeeri jiray ذي النورين kii labada nuur u saaxiibka ahaa. sababta loogu bixiyana waxay tahay li'annahu maxaa yeelay cuthmaan tazawaja wuxuu guursaday bintay ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam, labadii hablood ee nebigu dhalay calayhi salaatu wasalaam waa ruqiya iyo ummu kalthum radiyallahu ta'ala anhuma. islaamuhu, islaamnimadiisii iyo waqtiga uu islaamay, aslama wuxuu islaamay saxaabigani, wa cumruhu isagoo da'diisu ay tahay 34 sana, 34 jir isagoo ah, biyadi abi bakr as-siddiq, wuxuu ku islaamay gacanta saxaabiga jaliilka abu bakr as-siddiq ayaa sabab ugu ahaa inuu islaamo saxaabigani. marka wuxuu ka mid yahay min as-saabiqiin, saxaabadii u dheeraysay ee islaamnimada. sifaatuhu, tilmaamaha uu lahaa ee mar walba uu ku sifaysnaan jiray ee saxaabadu ay ku taqaanay, curifa waxa lagu yaqaanay biliini tabci, dabeecad dabacsan oo fudud ayaa lagu yaqaanay. walxayaa iyo xishood baa lagu yaqaanay. waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, alaa astaxyii, miyaanan ka xishoonaynin min rajulin, nin oo tastaxyi minhu ay ka xishoonayso almalaa'ikatu, malaa'igtu ay ka xishoonayso. marka saxaabigani waa saxaabi qiimo badan. fadluhu waxa ka mid ah waxyaalaha qiimihiisa iyo fadligiisa sheegaya min ashuhadaa, wuxuu ka mid yahay saxaabadii shahiiday ee ilaahay dartii loo dilay subxaanahu wa tacaala. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid isagoo buurta uxud fuushan ayay buurtu dhaqaaqday. markaasaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, uhbut uxud, buurtii uxud ay taagnow, fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiq, korkaaga waxa saaran nebi iyo sidiiq oo abubakar ah, wa shahiidaani, iyo 2 nin oo shahiidi doona, waa cumar ibnu khadaab iyo cuthmaan binu cafaan radia allahu canhu. waxaa ka mida fadligiisa ثالث صحaabiyin, waa saxaabiga saddexaad fi lfadli ee xagga fadliga. 3 saxaabo ayaa ugu qiimo badan oo ugu fadli badan saxaabada ridwaanullaahi calayhim. ka koobaad waa abubakar as-sidiiq, ka labaad waa cumar ibnu khadaab, ka saddexaadna waa cuthmaan ibnu cafaan, ka afaraadna waa cali bin abi aalib radia allahu canhu. وبعثه النبي نبينا وحو أدرى عليه الصلاة والسلام مفاوضا سيء أولا سو غرغرتمو لقريش نمنك قريش أو وضا هذا الأولا سمايو في الحديبية هشيسك الحديبية اللي ورنشري نبي عليه الصلاة والسلام مركو دون يينو صاع مريستو waxaynu ogsoonahay nimankii quraysheed inay ka hor joogsadeen inuu kacbada ku dawaafay isaga iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim. saxaabadiisiiba la tashaday
wuxuu yidhi waxaynu doonaynaa nin innagayna matala oo wadahadal la sameeya quraysh ninkaasi waa inuu yahay ninay aad u ixtiraamaan waxa la doortay cuثmaan binu cafaan radia allahu canhu inuu yahay ninka la hadli kara quraysh sidaas ayuu ku tegey magaalada maka oo uu u sheegay inaanay wax dagaala u soconin markii dambe waxaa soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam war beena oo odhanaya cuثmaan binu cafaan waa la dilay wuu ka cadhooday rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi saxaabadiisii yaa igula baayactamaya in aynu u soo aargudno cuثmaan binu cafaan radia allahu tacaala canhu baycadaa waxaa loo bixiyey baycat ridwaan ilaahay qur'aanka ayuu kaga sheekeeyey laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara tadxiyatuhu halgankii uu u galay diintan islaamka iyo waxyaalaha uu ku bixiyey waxyaalaha inoo muujinaya saxaabigani inuu diinta u halgamay waxaa ka mid a anfaqa wuxuu bixiyey saxaabigani 1000 diinaar 1000 diinaar buu bixiyey fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk wakhtigaasoo uu ku soo hagaagay dagaalkaasi wakhti ay saxaabadu xaalad adag ku jirto oo dhaqaalo badan aan la haysan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa maanta ciidankaa diyaar garaynaya oo bixinaya kharashka ay ku dagaalgelayaan aniguna aan janno ugu bushaareeya waxaa doortay saxaabiga cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canh waxaa ka mid ah halgankiisa waxafara wuxuu qoday oo uu lacagtiisa ku bixiyey qoditaanka bi'ru ruuma ceelkii ruuma la odhan jiray filmadiina ee magaalada madiina ku yaallay ceelka ruuma la yidhaahdo wuxuu ahaa ceel biyo macaan oo magaalada ku yaalla nin yahuudiya ayaa lahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay biyihii ku adkaadeen saxaabada in ay helaan wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa iibinaya ceelkaasi ee ku waqfinaya dadka muslimiinta ah ee aniguna aan janno u ballanqaadaa waxaa gacanta taagay cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu isaga ayaana lacagtiisa ku bixiyey oo ceelkaasi muslimiinta u sameeyey saxaabigaasi radia allahu tacaala canhu khilaafatuhu xilqabashadiisii iyo qaabkii uu ku noqday khaliifkii iyo hogaamiyihii muslimiinta radia allahu tacaala canhu lamaa maata markuu dhintay cumarun cumar markuu dhintay radia allahu tacaala canhu ikhtaara waxay doorteen asxaabu shuuraa asxaabtii talada iyo wadatashiga uu ku ogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu ka mid ahaa biqiyaadati iyadoo uu hogaaminayo saxaabadaasi golaha guurtida u qaabilsanaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim cabdiraxmaan bin cawf baa hogaaminayey cabdiraxmaan bin cawf iyo cali bin abi aalib iyo saxaabo kale oo ka mid ahaa raggii talada looga dembeeyey waxa ay doorteen cuثmaan bay doorteen likhaliifati اlmuslimiin inuu muslimiinta u noqdo hogaamiye iyo madaxweyneba uu u noqdo saxaabigani marka uu xilka qabtay ummadda islaamka wuxuu u qabtay shaqooyin waaweyn way fara badan yihiin laakiin waxaynu ka soo qaadanaynaa in kooban ahamu acmaalihi shaqooyinkiisii ugu muhiimsanaa ee uu qabtay cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu shaqada koobaad ee weyn waxay tahay jamaca almuslimiina muslimiinta wuxuu ku soo ururiyey radia allahu tacaala canhu biqiraa'atin waaxida in ay qur'aanka ku akhriyaan hal qiraa'o calaa luuqati quraysh iyaga oo isticmaalaya afkii quraysheed iyo lahjadii quraysheed iyaga oo ku akhrinaya biishaara arrinkaa waxaa kula teliyey xudayfa ibnu lyamaan radia allahu tacaala canhu saxaabigan xudayfa wuxuu ka mid ahaa saxaabadii qur'aanka aadka u taqaanay waxa uu ka qayb galay dagaaladii lagu furtay dhulka faris waxa uu arkay dad muslimiina oo isku haysta qur'aankii oo midba midka kale uu leeyahay waad qaldan tahay waxa uu u yimi cuثmaan bin cafaan wuxuu yidhi cuثmaanow dadku intaanay iskhilaafin si dhaqso ah ugu gurmo oo ummaddan waxaad samaysaa in ay hal xaraf ku heshiiyaan oo qur'aanka ay isku waafaqsan yihiin saxaabadii buu soo ururiyey waxaa ka mid ahaa zayd binu thaabit radia allahu tacaala canhu taladana waxaa lagu gooyey in qur'aanka lagu qoro biluuqati quraysh luuqadii quraysh sidaasay muslimiintu isku waafaqeen khilaafkiina uu ku baaba'ay waxaa ka mid a shaqada labaad ee muhimka ah asasa waqtigiisii wuxuu aasaasay albaxriya alislaamiya ciidamada badda ee islaamka wakhtigii cusmaan baa la aasaasay biishaara waxaa kula teliyey arrinkaasi mucaawiya bin abi sufyaan mucaawiya bin abi sufyaan wuxuu ahaa badha saabkii uu u magacaabay cuثmaan bin cafaan dhulka shaam wakhtigaa wuxuu arkayey iyadoo xeebaha muslimiinta ee masar iyo shaamba
duulaan ay ku soo qaadayaan nimanka Roomaaniyiinta markaasuu warqad u soo qoray Cuthmaan bin Affan Cuthmaano waxaan doonaynaa inaan samaysano ciidamada badda maraakiibtii badda iyo doonyihii aan ku dagaalami lahayn arrinkaa wuu ka aqbalay Cuthmaan bin Affan walidaalika waxa sharaf u ahayd Cuthmaan bin Affan فأسس وحو آساسي وقتيسي أول أسطول بحري مركب كي دغالي ugu horeeyay sababtuna waxay tahay lisad si uu hor istaago غارات الروم weerarada ay ku soo qaadayeen nimanka cadaanka على سواحل الشام ومصر حيبها الشام يا مصر si loo hor istaago معاوية بن أبي سفيان wuu qorsheeyay markabkii dagaal ugu horeeyay ayaa la sameeyay muslimiintu waxa ay ku guuleysteen maraakiibtaasi inay ku xaqiijiyaan arrimahan soo socda ومما استطاع وحيالها أي مراكبتاسي أود وياشان إيا عيدمada badda muslimiintu waxa kamida فتح قبرص waxa lagu furtay magaalada Qobros oo ku taala hadda dalka Turkiga loo yaqaano Warudus Qobros iyo Rudus waa laba jasiiradood oo ku yaala dalka Turkiga waxa lagu furtay doonyihii la aasaasay waqtigii Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waxa kale oo iyaduna jiray dagaal aad weyn oo dhex maray ciidamada badda ee muslimiinta iyo ciidamada Roomaaniyiinta dagaalka waxa la oran jiray ذات الصواري waxa loogu bixiyay waa dagaalkii doonyuhu ay shiraacyada isku xidheen ee badda dusheeda lagu dagaalamay iyadoo doonyaha shiraacyada la isugu xidhay dagaalka ayaa guuleystay وانتصر waxa guuleystay معركة ذات الصواري dagaalkii la oran jiray ذات الصواري waxa guuleystay muslimiinta في عام سنة مركوها 34 هجرية أفر إيا صدن كي هجرية أيا يقول إستير مسلمين تو ولذلك عثمان بن عفان شغوين كواوين بوقبتا يمضى إسلام كمو مرنين إنو سيب اللارية فرشوين كي أي بلابين صحابة رضوان الله عليهم فتوحاته فرشوين كي سيوحا كمدها فتح المغرب وحاو فرتي دالك مراكا الله يقانو وبلاد النوبة يودنك النوبة وكيالا جنوب مصر كونفرت دالك مصر وحاو دحيا السودان إيا مصر ودول هذو بلاران ويدقيهن دد مدمدو وحا فرتي وقت جيسي أيالا فرتي أو إسلام كلا جارسيي وفتح وحو فرتي sidoo kale بلاد الفرس wadamadi فارسيين تنو فرتي oo magaalooyinkoogii ayuu hore u sii galay wuxuu baacsaday ama uu eriyaday boqorkii u talin jiray فارسيينta ee la oran jiray Yazdajrid حتى قتل إلى ودلي يزدجرد أيا وحا وكدلي جبجبدي في بلده ودنكيسا مروة مجالة مروة أو أحيد مجالة مضحدي آديات كاو إلى شنشرين مكة فارسيين تا وحي كوجو ليستن عيد مضى إسلام كا وهو جامين يا عثمان بن عفان وقت قاسم دحوينها وها إن أي دجال كاسي أي جوليستان صحابي رضي الله تعالى عنه استشهاده شهيد نمديسي والنبي جوجسي بشاريين عليه الصلاة والسلام كان رحيما صحابي أذن حريص بضنبها رضي الله تعالى عنه فطمعه واحد دمعي أصحاب النفوس الضعيفة ضدك نفوه أي ضعيف كأهايين الكارهون للدين الله دين إله النعباء منهم وحكمها عبد الله بن الصبا اليهودي نين الله يرهد عبد الله بن الصبا وانين راي منيدا او يهوديه وحو اساسي urur qarsoon oo qarsoodi ah oo uu markaa khalkhal ku galiyay nabadgeliyadii muslimiinta waxa uu samaystay dad fara badan oo uu fikradda ka qalday ilaa markii dambe dadkaasi ay gaarsiiyeen in ay isku dayaanba inay dilaan Uthman bin Affan markay ka dalbadeen inuu xilka iska casilo Uthman bin Affan nabiga kula dardaarmay alayhi salatu والسلام إن آنو حلك ديبين ويا واحد عدون تبودي النبي عليه الصلاة والسلام إن لقاد البضاين حلك ديبته نبي وحي حلك هديبين صلى الله عليه وسلم تلاذي بقعتي حصاهاتي وحي كوجب الجبودي دلك فاشحما وكشهيدي سحابي عثمان بن عفان فقتله واحد دلي مركع عثمان بن عفان رجل نبى دلي مصري رام سرعة يقال له حلورين شري شبلة يا لورين شري عام 35 هجرية شن إيه صدقي هجرية ده أيا ودلي إسقى القرآن كآخرنا أو مصحف كما ركت القرآن كآخرنا سحابي أدو شعل بوها قرآن كريم كوقت قاسي قعنت مركو إسكجر جاي ننكي سيفت كل سو عرري قعنت يلا شري أيا وحور رضي الله تعالى عنه والله وقعنت وجوه الرئيسي كتاب كإلهي أن كقري قعنت ما أنت الله شريه حق درد اللي جو جينيه هل كاس اللي جو دلي سحابي قاسي إسقى مريا
قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله إلهي باكاغا في اللان دونا سيادي أدو أرحان دران أيو دلين من كاسي لكن إلهي باوغا أرقودي دمان رقي كغيب قاتي أباب الكاية الشرقال كاسي وحا يكو قبقبو بسيدة علماء التاريخ دو شاقين إن أيو كل انتان حالة آدي أدو فالحون هلكا وحا كبلا عمي خلقي مسلمين تيوغوه الرئي ما دامو هلكا وكو شهيدي أمل لقود لي خليف كي صدحادة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحين قاضنا نسب كيسا وحين قاضنا تلمامها وليهي وحين قاضنا هلقن كي وصو قلي دين إسلامك وحين قاضنا خلافة وقبطي شغوين كي وقومهم سنايين وقاضنا وحين كسو قبقبيني نحدينتي يستشهاد كيسايين كسو قبقبيني رضي الله تعالى عنه إلهي رالي أكرنا غضو صحابي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صحابي قيمة بضنبوها 10 كانوا انتهى سوكوكو بنان دون أرضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.